halkeen ka helaaye hooygin ku yaale hamigay adwaaye amma ka haraaye halkeen ka helaaye hooygin ku yaale hamigay adwaaye أما كهراي كرسي أنا وحكي دوبنا مرمر دوتك ويقدروا حتى ويقوموا وحاول متقنا وجبني متعدانا جرو كان عجار واي دوتك نوع وضع أركان إن سيدا أجنها هي معناها وقتي وحاجري سجاشن الشنطة مركل لقصار بلعبه إلا بدكون الشنطة وحي حمر كجرو ولا أوجاي النصيب ويلوين وقت يعني إن كفاية سنو maxaa yeelay waxa way waqtigaas waqti iska adag oo ahaa sida adduunka casriga oo hadda gaaro kala aaladahan lama haysan oo TikTok marka dad ciil oo hore u hayay oo hadda ciil baxaya lahay marka duqooda waxa way hadda luqaataan oday maxaa ka khaldan isniin maxaa dhacay in waxa way ciil aan hore isugu celin hadda tufoona dadkii horena waxaan rabnaa xusuus waxyaabihii xilliga iyada waqtiga iska adka aysan dawlad jirin isbaarada iyo dhici jirtay shaleemada markii la galay in nabad lagu soo naqanayo aan la ogeyn in waqtiga iyada aan xasuus dadka xogo rooroon oo anaga oo kale xasuusinoona qolada hadda joogta teamka hadda jooga oo dhalinyarada jiilkaana waqtigaas waqti fiican inoo ahay macnaha dhalinyaranimada laakiin waxa weeysan waqtigaas meel aan dhalinyaranimadiiba ku soo bandhigtaan marka hadda ciil baxeena hadda waxaayna aalada yimid TikTok yimid hadda mararka qaar marka heesayo waxaan maleeyaa waxyaabihi markaas ugu dhici jiray meelihii aadi jiray aniga naftirkeyga ugu soo dhaco dadka kale maxaa u maleynaa aniga ila midkee oo waqtigaas oo jiray hadda dad waxay dhaan xataa niyo waqtigii dib igu celiso wallahi 95 ki 94 ki dib igu celinaysa sunaaniyo marka marmar soo marto kala soo dareen ayaa jira meesha way heesa hindiga fanka hindiga inta badan ku xirantahay maxaa ku dooratay niyo sida ogtahay hindiga horta Soomaaliya waxa way hindi waxa bal dhigi karaa walaal way maxaa dhacay in badan isku xiranay saa ogtahay hadda dawladda markii joogtay hindida waa noola degnaayeen xamar weyne guryahooda ilaa hadda in hindi waxa arka xataa wiil looga qaxay xataa oo dadkiisa ay ka qaxeen oo Soomaalida la barbaaray oo hindiya markii hindida iyo Soomaalida aad bay xiriiraan ilaa hadda heesahooda in filmaadkooda haddii xoogo filmaadka xataa ciriiri gal mar hadda musalsaladooda soo batabo markii hindiya inta badan Soomaali iyo hindiya ma kala maarmaan marka fankan walaalay ka yihiin markaas ay xiriiraan marka saa darteed marka hees hindiya qaadid hore laga fahmaaba dhag Ethiopia hadda anaga saas noogu mixirno inkastoo mar sanka nagal soo geliya haddana waa isdiidiidanay Kenyatiga sidoo kale laakiin hindiga waxa way intuu ku taxaleysatay maharaja kaani cunug iska dhaaya arkaysa marka wax la yaqaan waa hindi waa gartay marka ay imaato in la qalabeeyo saaxiibkay oo adiga ah misleedahay fanaan rasmi ah oo banaankiisa ku dhacay waa yahay مسكو كل سنة معنا ها وأنا كرجينا يا سومالي وأنا كرجينا يا وأنا أجهي سومالي دد وناكسن واي دد أد وقلبي وناكسن واي تنكلا وحيابها أنا جا أسمينا أنا مرة خار فرحة كبيرنا أنا وحسوستي دب هذا إن دنيرني مديني وحيابي فرحة كرادينونا لكن هدي إما دد هرتين قبته أو معنا وحنا ترى أو نمال جليو دد مال كسبحي كرو أنا خنينا أنا جنا dadka xasuus badan giliyana waa noqon karnaa way adigu heesaha hindigina badshid kaliya ma ku runtahay mise heesaha caadiga ah sameyn kartaa laxanka say isku tihiin fanka gudahan in laxan ma sameyn kari yani laakiin erewa alifa oo hindiya bil khaysana ama hees Soomaaliya dhan kala ka dhiga in heesa badan oo xataa Soomaaliya jiray oo waxa ka badbedelay marka cod ahaan waa isku kalsoon tahay cod ahaan ha hadii leena aan dad wax loo dhiibo malweenay nin wax sameyn kara maadaama kama xamid ma sha Allah waqtigan markuu waxa taagan tahay waxaan rabaa inaan bilaabo inaan dib u soo laabto طبعا 20 سنه ولا إن جدال هذا ربعد أساسا جعلاي إن waxa way dadka ciil baxo hadda dhashayna iyo ila yaabin maxaa dhacay waqtigeyga fursadan ma aanan haysan sax waay hadda ka ciil baxa intaas ma leedida ha ugu qabsanna saaxiibayaalo hal dul qaata qeyladeeda loo dul qaato way
waxaan rajeynaynaa in dad badan ayagana maaragtay bal ay ka soo falcelin doonaan barta TikTok ku leeyahay ninka odagaa saaxiibka ay ku soo bandhigo inta badan aabaha la janka aabaha la janka in badan aan ku ahay waa jira in TikTok kale sunaan ay ku qoran tahay laakiin kaas hadda fahmaas ma aan ani waxa waaye ninkaana hadda ku xirtay saaxiibkii asaa isoo waday waxaan in waxa waaye soo muuqo niyo nin talent lahaatay soo muuqo in asaa dhahay soo muuqo saaxiibkii oo ii gartay ma fahantay asaa arkay dhowr mar anoo heesay markaas uu iriniyo in dad adoo kale weeyba yarihiin ba ma soo muuqatid waxaan dareenkan iyo dhiirigelintan asala masha Allah way asaa waliba ku mahadsanoo mudanna hadda in oo qof mugdi ku jiro oo soo saaro nin oo mugdi qof ku jiro soo saaro ninka ugu fiican aan dhihi karaa aad u mahadsantaa nin odaya oo la jira way intaas marka laga yimaado ma laga yaabaa mar dhow inaan aragno adoo dib u soo qaadayo heeso hindiya oo muusigooda dib loo tumay codka inaa ku shubtid muuqaaladoodii oo official ma laga yaabaa in baraha bulshada lagu arko maasha Allah waa ku raataaganahay haduu Ilaahay idmo taasna waxay u baahan tahay in qalab iyo wax la helo in waa rajeynaya waana jeclahay waxa qabada hadda idin hortaagana wax soo bandhigtaan ma jiraan in waxa jirto in hadda kursiga aan wax ku duubno mar doodka oo igu duraa xataa oo igu mudaa waxa way mataqaana way jaban yahay mid cadaan ah jiro kan cagaar way dadku dhan way wada arkeen marka duruufo ay jiro laakiin waa ka gudbeena insha Allah waxa laga yaabaa ka dhalanay Soomaalina waa deeqsi waxa laga yaabaa saaxiibo badan oo taageerayaal ku ah muuqaan arkaan soo jawaabaan insha Allah haduu Ilaahay idmo adeega maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees